halkani waa BBC London idaacada iskala socotiin mobile gacanta ee internet kameel bas kala socotiin ayaa maanta wararka galabnimo oo shanta galabnimo ayaa warkeeda maanta diin wada wararkan waxa uu waaweyn Ronaldo account YouTube kiis la jabsaday kadib markii ay isgafeen asagii Harry Maguire account kala wareegay la soo sheegay waqti ugu dambeeyay kadib muxuu soo wacay qolada cyber security Mr. Curious weyn yahay marka damban accountis waa loo soo dhicay laakiin inkastoo lacagtii account u soo gashay kulli Harry Maguire kala wareegay asagii Anthony kala qaybsaday la soo sheegay wararkeena maxaa ku xigay intii Eritrea shaqada laga tirrabo oo Mr. Curious oo hadda ku hor Arsenal 15 Champions League u reey 12 Premier League u reey ayaa la sheegay intuu shaqada la wareegi doono oo Man United intuu meel gaarsiin doono Man United dadka iskara ayaa ku faraxsan intii oo coach Mr. Curious ay sangareen rabaan oo contract ay u soo bandhigiraan oo endless on ba qiyaas lahayn maadaama uu coach kasaga uu coach wixii oo gul badan ayuu Man United u keen rabaa Man United hadda la sheegay intii 10 ay table Premier League ay ka fuushay ayaa la sheegay intii oo hadduu Mr. Curious gacanta ku dhigay ay number 1 ay noqon doonto oo shaka ku jirin oo ninkaasna shaqada ayuu weyn rabaa laakiin laba ciyaar ayaa loo qabtay wararkeena maxaa ku xigay midka wararkeena kale maxaa ku xigay inta la sheegay Champions League sanadka lagu reeyay lahayo ama loo tartamaha ayaa la weeyay kadib markii la qaaday investigation ama la qaaday dabagal la qaaday maxaa lagu soo arkay guriga Arsenal ayaa lagu soo arkay wararkeena maanta intaas ay fiidin maanta wararka maanta la socotiin waa taariikhda 2021 waa bishiga taariikhdana waa 42 so wararka dhameystiran ayaa iskala socon doontiin meeshan hay channel subscribe saare BBC marka laga soo tago channel subscribe saare ni family haddana uu imaado wararka oo kaamilsan wararka headline ka ahayn hadda wararka oo kaamilsan uu imaado wararkeen maanta waxa uu horeeyay Ronaldo account laga jabsaday maxaan weydiin doonaa maxaa faahfaahin dheer laga siin doono Suldaan oo jooga adduunka meesha ugu dambaysa asagoo war naga siinahay si wax u dhaceen iyo si wax u jiraan haye Suldaan maxaa dhacay Mr. Curious aad iyo aad bayad mahadsan tahay maadaama aad fasax isiisay intaan kuu sheegay wixii dhacay Ronaldo asagoo live ku jira ayaa passwordkiisa iyo emailkiisa oo YouTube-kiisa la arkay kadibna Harry Maguire iyo Anthony ayaa isla markii ku degdegay intii ay login gareeyeen ay galaan YouTube-kan way fahmi weeyeen oo waa ku baaleen intay galaan oo Ronaldo account-kiisa sidaas ayaa loogu wareegay markii kadib ayaa notification awar laga soo diray ayuu ka baxay qadku ka baxay oo live ayuu gagabay oo difaac ayuu galay laakiin maxay ka ahayn difaac markii dambe qolo Mr. Curious committee oo cyber security ayuu la hadlay oo cyber security way dadaaleen inta waxay isku dageen intii ay soo account u soo celiyeen balse laakiin way markii dambe ku guuleysteen laakiin lacagta dhamaalo account YouTube ku soo gashay kula laga wareegay sidaas daraadeed Ronaldo hadii lacag shilin kama hayo oo subscribers wuxuu kula u fulan laakiin lacagtii u soo gashay kula laga qaatay sidaas wax dambe ku soo koran anaga kula soo socodsiinay haatan wararkeen kale ayaan soo gudbaynaa oo Suldaan ayaana la wadaagay warka asaga asoo adduunka meesha dambaysa jooga wuxuu Ronaldo YouTube kiis ka soo kordhan intaas kala soconaysiin wararkeena qaybta ku xigtay maxay ahayd intii oo Arsenal ay Champions League ay xaday idoo la ogeyn maadaama ay caad u reeniweysay wararka sagan maxaa weydiin doonaa Maxamed oo jooga had Emirates oo isla jiraan hadda Odegaard oo jabana isla jiraan war dhameystir ayuu naga siin doonaa sidii wax u dhaceen iyo sidii wax loo jabsaday wax ku qasbay intii Arsenal Champions League soo xad bedelka u dagaaltamay caadi wadada saxda soo maray sidii Real Madrid camal haye Maxamed war naga sii bal warkaas Mr. Curious wararka ugu dambeeyay London ka soo gaarayo aniga hadda Manchester baa jooga wararka ugu dambeeyay London laga soo gaarayo waxyaalaha sheegay waxaa kamid ah in kastoo warka la qarinayo war official ahayn in Champions League laga helay Arsenal guriga leedahay oo London ku yaalo kadib markii Arsenal la hadlana Arsenal waxay cadeystay inay baasha xaday laakiin waxay soo gudbiyeen way soo celiyeen asoo laakiin gees ka jaban dhulku nooga dhacay bay yiraahdeen taas oo aad ku ah kooxda Arsenal kooxdeena marka warar kale way jiraan waa sugeynaa warka hadda maxaa naga soo gaaray Manchester Maxamed ayaa noo soo sheegay war sax oo la hubo waa ceeb lama arkaan kala weyn oo Arsenal intii Champions League ay xadoo daraaso asoo jabadtii soo celis waa ceeb lama arkaan wallahi
soo Arsenal hadda sida Real Madrid meel waa gaari doonaan. wararkeena qaybta labaad maxay ahayd intii Erik ten Hag oo shaqada laga tiri oo shaqadiis qiilqiil ku jirto hadda oo laga wareegi rabo Mr. Karius kala wareegi rabo wararka isagoo dhameystiran maxaa faahfaahin naga siin doona Ayub oo jooga halkan oo joogo British oo joogo Erik ten Hag ay isla jiraan hadda hay Ayub war naga sii bal waxa ka dhacay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Mr. Karius maxaan kala soo xiriirayaa Manchester wararka ugu dambeeyay Manchester United ayaa la kulantay dhibaatooyin badan iyo guuldaro badan iyo kooxdooda jooga Old Trafford sidii Liverpool oo Trin la xirtay iyo Hotspur oo Tottenham oo Trin la xirtay sidaa daraadeed dadka Manchester United iskale maxay dhaheen Glassers maxay dhaheen laba game ayaan ku siinay labadaas game ayaa la rabaa intaas ku soo dadaashay sifa as u reysid hadda Reynwiisadna waa baagaas qaadanay oo waa naga tagay oo Mr. Karius oo hadda ka hor Arsenal 15 bil 15 Champions League iyo 12 Premier League u reey ayaa la keenay oo markaas Manchester United tababarahooda iyo oo tababaro cusban ay loo keen raba iyo fans iyo dadkooda dhammaanayeen faraxsan maadaama Mr. Karius loo keen raba oo coach qatar oo ninkaas markii la keen ayaa la dhihi doonaa Manchester hadday soo kacdo oo Manchester United hadday bilaabatay ayaa la dhihi doonaa sidaas ayaa warka ugu socdaan ee hadii labadaas games Erik ten Hag asriinin oo isguul dareystay baagiis qaadana Mr. Karius ayaa nafas ku banaanaya sidaas waa wararka ugu dambeeyay anana kula soo socodsiinaya